agagaarka taalada daljirka daahsoon ee magaalada Muqdisho in loo adeegsaday gaari lagu soo xiray walxaha qarxa. kulan wacan oo xiiso leh Cabdirasaaq Ciid oo ku hadlay afka baarlamaanka Soomaaliya xubinna ka ayaa si kulul uga hadlay weerarkii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasoo sababay khasaare xooggan. xildhibaanka oo ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay maqaayadda Top Coffee iyo weerarkii ka horreeyay ee xabsiga dhexe ayaa sheegay inay yihiin wax aan loo dulqaadan karin, wuxuuna tilmaamay inay muujinayaan inuu faraha ka sii baxay amniga caasimadda dalka. sidoo kale wuxuu tilmaamay in baarlamaan ahaan ay dalbanayaan isla xisaabtan dhab ah si ay cid u qaadato mas'uuliyadda dhibaatooyinkaasi dhacay. waxaa kaloo uu raaciyey baarlamaan ahaan waxay rabaan in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhibaatadaasi, jawaab cad ayayna ka rabaan dowladda. xildhibaanka ayaa tilmaamay inay shaki weyn muujinayaan weerarada marka loo fiiriyo goobaha lala beegsaday oo si weyn loo ilaaliyo amnigooda. weeraradan isxigxigay ayaa ku soo aaday iyadoo bilihii la soo dhaafay ay reer Muqdisho ka nasteen qaraxyadii hore uga dhici jiray caasimadda kadib qorshe ay la timid dowladda. dhankooda warbixin hordhac oo booliska ka soo baxday ayaa waxay tusaysaa in qaraxii xalay ka dhacay maqaayadda Top Coffee oo ku taal agagaarka taalada daljirka daahsoon ee magaalada Muqdisho in loo adeegsaday gaari lagu soo xiray walxaha qarxa kaasoo la dhigay bannaanka maqaayadda sida lagu ogaaday warbixinta hordhaca ee booliska. warbixinta ayaa waxaa ku cad in 5 qof ay ku geeriyoodeen, ku dhowaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. sidoo kale waxaa jira gaadiid iyo goobo ganacsi oo ku burburay qaraxa, waxaana socota qiimaynta khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxaasi sida ay qortay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan. maqaayadda ayaa gubatay kadib markii uu qabsaday dab ka dhashay qaraxa. dad badan ayaa maqaayadda ku sugnaa kuwaasoo u badan dhalinyaro ciyaar halkaasi ku daawanayay. markii laga soo tago khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dadkii ku sugnaa maqaayadda, wuxuu khasaare ba'an soo gaaray dadkii saarnaa gaadiid mooto bajaaj u badan oo marayay waddada, gaar ahaan laamiga isku xidha isgoyska Shabeelle ee daljirka iyo isgoyska Jubba. qaar ka mid ah dhalinyarada ka badbaaday qaraxaasi oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay arkeen dadka dhulka yaala oo qaraxu saameeyey, balse aysan kala caddayn karin inay dhinteen iyo inay dhaawac ahaayeen iyo tiradooda intii ay dhanneed. gurmadka loo fidinayay dadka ku waxyeeloobay qaraxa ayaa socday saacado, waxaana ugu dambeyn lagu guulaystay in la damiyo dabkii weynaa ee ka dhashay qaraxa kaasoo maqaayadda qabsaday. xaaladda aagga uu qaraxa ka dhacay ayaa noqotay mid aad u kacsan, waxayna ciidamadu ridayeen rasaas argagax ku sii riday dadkii gurmadka fidinayay. qaraxan wuxuu iyadoo saacadoona uu ka soo wareegay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar oo maxaabiis kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo dil ku xukunnaa ay ka fuliyeen xabsiga. sidoo kale halka uu qaraxa ka dhacay waa goobtii 2021 lagu qarxiyey agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika, waxaana laga furay maqaayad cusub oo lagu magacaabo Top Coffee taasoo xalayna lala beegsaday qaraxaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay maqaayadda Top Coffee ee gobolka Banaadir, halkaasoo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 5 qof halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. war qoraala oo lagu baahiyey baraha internetka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in kooxda ay weerar ismiidaamina la beegsadeen goob ku dhow Villa Soomaaliya oo ay sheegeen inay ku dhaawaceen saraakiisha sirdoonka iyo shaqaalaha dowladda. Al-Shabaab waxay sheegeen in barta uu ka dhacay weerarka ay tahay meel ammaankeedu aad loo ilaaliyo, balse iyagu ay u suurtagashay inay weerar gaari loo adeegsaday ka geystaan halkaas. marka laga soo tago sheegashada kooxda Al-Shabaab, weli lama xaqiijin ciidan ama shaqaale dowladeed oo ku geeriyooday weerarka. booliska waxay sheegeen in dadka ku geeriyooday u badnaayeen shacab waddada marayay iyo kuwii ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay. Cumar Xuseen oo ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa bixiyey xog ku aadan siday wax u dhaceen, wuxuuna sheegay in isagii asxaabtiisa ay goobta ku sugnaayeen xilligii uu dhacayay qaraxa oo gaari loo adeegsaday. wuxuu tilmaamay
in goobtu ay ku dhinteen qaar ka mid ah saaxiibadiisii oo ay wada joogeen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen balse uu isaga ka badbaaday. waxa uu koru sheegay in maqaayaddu ay iska ahayd goob iska caadi ah oo dhallinyarada iyo dadka kaleba ay ka shaahaynayaan ama ay wakhti ku qaataan, islamarkaana caan ka ah degmada Boondheere. dhankiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo war-saxaafadeed ka soo saaray ayaa sheegay in weerarkan uu muujinayo cadaawadda uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay u qabto dhallinyarada iyo ganacsatada Soomaaliyeed marka loo eego goobta ay beegsatay. sidoo kale waxa uu si adag u cambaariyey falkan argagixiso, isagoo tacsi u diray ehelada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxaas, kuwa dhaawacana uu rajeeyay caafimaad buuxa. dhankiisa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isna qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in qaraxan ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab uu muujinayo sida ay cadow ugu yihiin nabadda iyo xasiloonida guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.